dalka Ruushka dhanka shaqada, waxbarashada, dhanka nolosha, maciishada iyo macluumaad guud. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan ka hadlaynaa wadanka ugu dhulka weyn caalamka uguna qabow bad la-eg in ka badan kala bar qaaradda Afrika 17 milyan oo kilomitir square ah una dhigmo dadka qaaradda Koonfur Ameerika oo dhan. weyninka dhulka saameyn dhanka difaaca ayuu ku reebay taariikhda Ruushka. waa dhul qabow malaayiin kilomitir tahan cidii aanan aqoonin ku daalayso ku lumayso. Napoleon Bonaparte hogaamiye Faransiis ah ayaa ku duulay Ruushka. ciidan xoogan ayuu watay taasoo keentay in uu gudaha u galo dhulka Ruushka. ciidanka Ruushka dhulkaas malaayiinka kilomitir ah afka saaro in la daaliyo ciidanka Faransiiska ilaa si xun looga jibiyay gaajo iyo cudur sahay la'aan u halaagsamo. ciidankii Napoleon natiijo taas la mid ah ayaa ciidankii saddexaad ee Jarmalka ku qabsatay Stalingrad dagaalkii labaad ee adduunka. ku soo dhawaada mowduuceena maanta. fadlan kanalka riix meesha ay subscribe ku qoran tahay, commentigaagana waa muhiim. Ruushka markaad magacaas maqasho waxaa maskaxdaada ku soo dhici hub nuclear ah, dhul aad u ballaaran, baraf. waana mid run ah. Ruushka waxa ku yaala deegaanka ugu qabow dhulka, tuulo lagu magacaabo Farqionis. haddii aad biyo kulul kor u tuurto ayagoo baraf ah ayay dhulka ku soo dhici. Ruushka waa dawlad federaali ah. markaan leenahay federaali waa macnaha dhabta ah federaali, jamhuuriyadda yaryar oo u madax bannaan arrimahooda hoose sida Saaqa Republic ama Yaqutia oo ah dhul ka weyn wadamada Masar iyo Sacuudiga markii la isku daro. waana deegaan federaali ah kan ugu weyn caalamka. tabaniyadaas jamhuuriyadeed oo u madax bannaan arrimahooda hoose waxaa lagu hogaamiyaa Moscow. dowladahaas federaaliga ah waxaa ka mid ah mid muslima oo lagu magacaabo jamhuuriyadda Tatarstan, caasimadeeduna tahay Kazan ama Kazan. Kazan waa magaalada saddexaad ugu weyn Ruushka markii Moscow iyo St. Petersburg laga soo tago, waxaana ku yaalo masaajidada caalamka kuwooda ugu qurxoon. Tatarstan ka mid ma ahan jamhuuriyadaha muslimka ah ee Ruushka haysto mandaqada ku kaas dhaco sida Shishan, Dagestan, Injushiya. Ruushka waa dalka leh xuduudaha ugu badan oo la wadaago dalal kale. 14 dowladood ayuu xuduud la leeyahay oo kala ah Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Belarusia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan iyo Kazakhstan. dhinaca Mongolia, Kuuriyada Waqooyi, Mareykan iyo Japan wuxuu la wadaagaa xuduuda dhinaca badda ah. waxaa jiro dhul leeyahay oo gooni ku yaalo aanan xuduud la lahayn Ruushka intiisa kale. haddaad fiiriso daafaha badda Baldiqa waxaad arkaysaa cadkan xuduuda la leh wadamada Poland iyo Lithuania kana fog xuduuda Ruushka. waa dhul Jarmalka ku lahaa Sofiyaadkuna qabsaday 1945 dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana ku taalo magaalo Jarmalka taariikh u leh maantana loo yaqaano Kaliningrad. Jarmalku u yaqaanaan Königsberg. inkastoo deegaankan Jarmalku aynu xuduud la lahayn haddana waa dhul Jarmal. laakiin dagaalkii labaad ee adduunka loogu qabsaday dhinaca nolosha Ruushka. haddaad tagto waxaa ku soo wajaho caqabad dhinaca luqadda ah. waxaa yar dadka English ama afaf kale ku hadlo. Ruushku waa ummadaha jecel luqadooda. meel walbana waxaa ku qoran af Ruush. dadka yaryar intooda badan uma xirxirno sida dadka waaweyn oo soo gaaray midowgii Sofiyeed. cunsuriyadda waxaa laga yaabaa Ruushka waxaa ka jiro cunsuriyad, laakiin runtii ma ahan mid xaqiiqi ah. waxaa yar inaad cunsuriyad la kulanto Ruushka. rag muslim ah weliba madow ah ayaa arrinkaas xaqiijiyay oo ku noolaa Ruushka. maciishada iyo nolosha ma ahan mid qaali ah. Ruushka wayna ka raqiisan tahay wax badan. tusaale ahaan Yurubta galbeed markii laga reebo magaalooyinka waaweyn. dhaqaale ahaan Ruushka ma xoogano. dakhliga qofka Ruushka ah ma ahan mid badan. sidaas darteed waxaa macquul ah in maciishadu ahaato mid jaban ama nolosha jabnaato. dhinaca cimilada Ruushka waa dal qabow inta badan waqtiyada sanadka oo dhan, laakiin gobolada koonfureed way dhaamaan kuwa waqooyi. tusaale magaalada Kazan oo ah magaalo muslim ahna tan saddexaad ee ugu weyn Ruushka. sidaan soo sheegnay cimilo ahaan way ka fiican tahay Ruushka qaybihiisa waqooyi. dadka booqanaya waxaa lagula talinayaa in xilliga xagaaga booqdaan Ruushka ama samirka bisha 6, 7, 8 ee sanadka. dhinaca gaadiidka isku gudubka waa mid kala duwan oo sahlan
sida basaska tareenada waana mid caadi ka ah inta badan magaalooyinka Ruushka. Lacag aad u yar ayaana lagu raacaa gaadiidka dadweynaha, laakiin taksiyada ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn waa mid qaali ah. Waxaa lagugula talin lahaa inaad iska ilaaliso, laakiin waxaa jirto xeelad ah adeegsiga application Yantakis lagu magacaabo oo Ruushka lagu isticmaalo oo laga dalbado gaariyada taksiyada uuna ka raqiisan yahay taksiyada kale. Haddii aad rabto safar tareen kan ugu dheer caalamka, waxaad ku safri kartaa qadka tareenka Moscow Siberia ee bariga fog ee uu Ruushka tago masaafo dhan 9,000 oo kiiloomitir. 6 maalin ayaad wadada ku sii jiri. Ruushya ayay u weyn tahay. Ruushka waxaa maro 100,000 oo webi, waxaana ku yaalo harooyinka biyaha macaan ee la cabo kuwooda ugu waaweyn caalamka. Harada Baikal waa harada ugu weyn ee leh biyo macaan. Biyaheedu waa macaan oo la cabi karo, aanan cusbo ahayn. Sida badda 4 meelood meel biyaha ee la cabo caalamka waxaa laga helaa Ruushka. Muslimiinta Ruushka ma ahan kuwa soo galooti ah, xitaa kuwa dego meelaha ka fogfog Qowqaad sida Tatarstan iyo Siberia. Waqti aad u fog ayay muslimiintu ku noolaayeen Siberia, waxaana ku yaala masjidka ugu fog dhinaca waqooyi caalamka, wuxuuna ku yaalaa Siberia. Dhinaca waxbarashada iyo maciishada, joogitaanka waddanka Ruushka, arday badan ayaa wax barasho u aada sanad walba dunida daafaheeda. Jaamacadaha Ruushka sanad walba 10,000 oo arday ayay u qaataan qaab minhaa. Jaamacadaha Ruushka waxaa lagu ammaanaa in bixinta lacagta lagu dhigto uu ardaygu haysto fursado badan, sida inuu in yar u bixiyo, inuu dib ka bixiyo. Sidoo kale 3 luuqadood ayaa waxaa lagu bartaa waddanka Ruushka, oona ugu horeyso afka Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska. markasta oo aad afka Ruushka taqaano waxaa haysataa fursad aad u badan dhinaca waxbarashada. Dhinaca qiimaha lagu dhigto ama lacagta aad qaali uma aha marka loo barbar dhigo wadamada kale. Kulliyadaha muhiimka ah sida caafimaadka, injineernimada waxay ka bilaabanayaan ilaa $1,000. Kulliyadaha kale sida siyaasadda, luqadda, saxaafadda, dhaqaalaha way ka sii jaban yihiin. Jaamacadaha ugu fiican waxay ku yaalaan 3 magaalo ee ugu weyn Ruushka: Moscow, St. Petersburg iyo Kazan. dhalinyarada muslimiinta waxaa lagula talin lahaa inay aadaan jaamacadda Kazan maadaama ay tahay magaalo muslimiinta ay ku badan yihiin, mise magaalo muslim ah. Injineernimada furuucdeeda kala duwan ilaa 2,000 ayaa lagu dhigtaa $2,000. Gudbinta dalabka ku biirida jaamacadaha Ruushka 3 qaab ayaa loo gudbiyaa, sida uu noo xaqiijiyay qof arrimahaas wax badan kala socda oo halkaas ku sugan. Number 1 inaad baarto jaamacadaha Ruushka kadibna si toos ah ula xiriirto. Number 2 sidoo kale dhinaca website-kooda aad kala xiriirto. Number 3 qof meesha jooga uu ku gudbiyo haddii aad taqaano qof Ruushka ku nool, jinsiyadu doonaha ahaadee, muhiimadu aad taqaano arrinkaasna ka saacidi karo inaad dukumentiyadaada aad u dirto uu la aado jaamacadda Ruushka kadibna dalabkaada u gudbiyo. Waxaan qiyaasayaa inuu qodobkan yahay kan ugu fiican. Gudbinta jaamacadaha Ruushka $150 ilaa $250 waa cunada deegaanka ardayga oo bishii ku bixi raashin ahaan. Jaamacadaha ugu caansan Ruushka waxaa ka mid ah jaamacadda Moscow loona yaqaano Lomonosov, sidoo kale oo ah jaamacadda xukuumi ah, sidoo kale jaamacadda Tomsk. Igaraali noqo inta aanan kanaal ku soo biirin, waxaan niga codsan lahayn inay subscribe dhahaan fadlan. Haddii aad daawato kanaalka Warsan Media, gambaleelkana furo si aad noola socoto markas